Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ayaa faahfaahin guud waxa ay ka bixisay sababihii ay u hakadeen howlgalladii ka dhanka ah Al-shabaab ee ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ay ka wadeen guud ahaan gobollada dalka. Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhigga ee Dowladda Federaalk Soomaaliya Jenaraal Cabdulaahi Cali Caanood ayaa sheegay in markii dagaal la galo uu yimaado khasaare soo gaara dhinacyada, balse xilligan ciidamada dowladda ay u diyaarsan yihiin wax kasta oo howlgal ah oo ay amniga guud ku sugayaan. Wuxuu sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay u diyaarsan yihiin howlgallada, balse sababaha ugu waaweyn ee ay u istaageen howlgallada ay yihiin in la helo ciidamo deegaanka oo iskaashi siiya ciidamada xoogga dalka ee la dagaalamaya Al-shabaab. Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhigga ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya wuxuu hadalkiisa ku sii daray in sidoo kale loo baahan yahay abaabulka howlgallada ee dhinaca madaxda sare ee dowladda Soomaaliya si meelo badan oo Al-shabaab xilligan ay maamulaan looga faramaroojiyo. Muddo ka badan 4 bilood ayaa waxaa hakad ku jira inta badan howlgalladii ka dhanka ah Al-shabaab ee ka socday guud ahaan dalka, waxaana dowladda Soomaaliya ay sheegtay in wejiga labaad ee howlgallada oo dhowaan bilaaban doona sida dowladdu ay shaacisay ay ka qayb geli doonaan dalalka safka hore sida Djibouti, Ethiopia iyo waliba Kenya.